muqdisho shalayta oo ku geeriyooday mid ka mid ah guddigii halbowlaha u ahaa dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya. Injineer Maxamed Cumar Saalixi oo ahaa qofkii hayay kaydka macluumaadka badda Soomaaliya kana mid ahaa guddigii dacwadda badda ku soo jiray muddada sanadaha ah ayaa geeridiisu ay timid wax yar uun kadib markii dib loogu soo celiyay waddanka isaga oo laga keenay dalkaasi Turkiga. Madaxdii hore ee Soomaaliya iyo kuwa waqtigan oo ay ku jiraan madaxda waqtigan iyo weliba madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyay geerida injineerka waxaana warbixintan nooga diyaarisay wariyaheena Zahra Cabdi Ahmed. allaha u naxariistay injineer maxamed cumar saalixi oo waqti ku siman 50 sano la soo shaqeeyay dowladihii iyo hay'adihii samafalka ee dalka ka soo shaqeynaya ayaa waxa uu haatan ahaa mid ka mid ah guddiga ugu firfircoon arrinta muranka badda Soomaaliya oo uu ku soo jiray taas xataa tan iyo markii dowladii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud ay u magacowday. walaalkiis wariye Axmed Cumar Saalixi ayaa iiga waramay marxuumka aqoontiisa iyo bilowga noloshiisa. 1979 xilligaas oo uu dhameeyay jaamacad ku taala dalka Poland oo uu ka qaatay shahaadada masteradka ilaa hadda oo lagu jiro 2021 oo Ilaahay uu oofsaday. intaasi wuxuu ahaa nin qarankiisa u shaqeynayay. Maxamed Cumar Saalixi sanadkii 1952 wuxuu ku dhashay degmada Luuq ee gobolka Gedo. Injineer Saalixi oo bartay cilmiga cabirka badaha ayaa waxa uu ahaa qofkii ugu dambeeyay ee ka jeediyay maxkamadda cadaaladda ee ICJ ee Hague ku taala dooda dhinaca Soomaaliya maadaama uu hayay galdacwadeedka Soomaaliya sanadkii hore. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa ku tilmaamay inuu ahaa injineer Maxamed Cumar Saalixi aqoon-yahan howlkar ahaa dalkiisana jeclaa oo wadani lagu tilmaamay. wadani dal jecel karti badan xirfad yaqaan xilkas garasho badan daacad af iyo adinba umadu ka nabad gashay. Injineer Maxamed Cumar Saalixi aniga intii aan xilka hayay 4 sano iyo dheeraad hadda oo aan ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahaa ayaan isnaqaanay waxaana aad xiriir dhow u yeelanay intii shaqada dacwadda badda aan anigu qayb ahaan inaan hogaamiyo ku soo biiray dhamaanteed. Maxamed Cumar Saalixi wuxuu ahaa raggii bilaabay qaabilsanaa gudbinta dacwadda khibradda iyo aqoontana u lahaa arrimaha badda iyo xuduudaha. nin dadaal badan oo karti badan ayuu ahaa. ugu yaraan 2 goor ayaan wada tagnay maxkamadda cadaaladda adduunka oo tii ugu dambeysay aanu ka wada qayb qaadano labadeedu waan soo jeedino ku lahayn. intii u dhaxaysay muddo 2 sanadood iyo dheeraad ku dhawaad 3 sanadood ahna waxaanu si joogto ah uga shaqayn jirnay gudbinta qoraalada iyo dacwadaha iyo ka jawaabidda wixii hadba nala soo gudboonaada ee dhinaca kale ee Kenya ka yimaada oo maxkamaddu aynu soo weydiisay. nin dal jecel buu ahaa aqoontiisa iyo kartidiisana si hagar la'aan ah uga faa'iideeyay dalkiisa. ka sokow inuu ahaa injineerka xubin firfircoon kana dhex muuqday guddiga Soomaaliya ee u xilsaartay arrimaha badda Soomaaliya maadaama uu cilmi u lahaa waxa uu ahaa dhinaca kaleeto nin ku soo qaatay howlihii uu hayay qaranka sanadihii ugu badnaa ee noloshiisa. waxaana si kooban mar kale iiga waramay howlihiisa shaqo ee dowladihii kala gedisnaa iyo hay'adaha samafalka uu soo qabtay walaalkiis Axmed Cumar Saalixi. 1988 ilaa 89 wuxuu ahaa ninkii ciidamada Soomaaliya iyo Itoobiya kala qaaday oo xilligaas Dugdug Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii hore Soomaaliya wuxuu ahaa la taliyaha dhinaca dhulka iyo xuduudaha ayuu ugu magacawnaa. dowladda Cabdiqaasimna wuxuu ka noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda beeraha. dowladda hadda Xasan Sheekh uu maamulayay 2014 wuxuu noqday xilligaas waxa loo qaatay markii muranka xuduudaha badda Soomaaliya iyo Kenya ay bilaabatay la taliyaha madaxweynaha ayuu noqday. baddana run ahaantii ninka maababka badda isku soo dubriday iyo kiisaskeeda iyo wixii xogta dhan hayay ayuu ahaa. taasi waxay keentay in dowladda Soomaaliya marka labaad ee farmaajo madaxweynaha uu noqday isna la taliyo uu ka dhigo. 1993 ilaa 94 ilaa 95 wuxuu ahaa xafiiska bini'aadanimada UNICEF ninka gobolka Gedo u qaabilsanaa ayuu ahaa. madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna ka hadlay waxqabadkiisa iyo qof ahaan qofka uu ahaa injineer Maxamed Cumar Saalixi. wuxuu ahaa injineerka nin aad iyo aad muhiim u ah Soomaalinimadiisuna ay aad iyo aad u sareyso dalkan iyo dadkiisa aad u jecel u ahaa. khatar badanna u bareeray in uu dalkan danihiisa iyo dadkan sharaftooda iyo karaamadooda iyo waxa ay leeyihiin uu ilaaliyo. wuxuu ahaa injineerka guud ee arrinta badda. aqoonta uu injineer Saalixi lahaa dadka Soomaalida aad ay u yar yihiin fara ku tiris waay. asiguna ahay ninkii soo istaagay marmarka qaarkood meelo laga cabsado iyo wax laga cabsadona ugu bareeray
bareeray in uu difaaco badda Soomaaliya. aqoontiisa waayo aragnimadiisa iyo khibradiisa ku difaacay nin ra'yigiisa cadcad yahay ayuu ahaa oo marnaan ogolayn in tanasul laga sameeyo ama compromise laga galo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qadiyadaas badda. injineer Saalixi ayaa waxa uu xanuunsanaa wax ka yar bil waxaana sanadihii ugu dambeeyay uu ahaa bukaan socod waxaana qoyskiisa asagaba ay isla garteen in dalka dib loogu celiyo maadaama xaaladiisa ay adkaatay. Shalay ayaa diyaaradii dalka dib loogu soo celinayay gudaheeda uu ku dhexmeeday ka hor inta aysan soo caga dhiganin garoonka diyaaradaha ee aadan cadde magaalada Muqdisho.